waxay dhaceen boqolaal bangi. Hackers stole millions. oo ku kala yaala 25 wadan. Malware was their tool. waxayna dhaceen $1 bilyan. They stayed hidden. qasabna kumay xadin, qorina kumay qaadin. waxayse ku dhaceen qalad mid ka mid ah shaqaalaha bangigu galay. They operated for years. waxay ahaayeen burcad halisa. They called themselves Carbonac. oo ka soo jeeda wadamo kala duwan. Tracking them was hard. haddaba yay ahaayeen. How long did they operate? sideese loo soo qabtay? sidayse u xadeen lacagta intaa leeg? su'aalahaas iyo kuwa kale ayaynu jawaab ugu dooni doonaa xalqadeenan xogdoon oo ku saabsan mid ka mid ah dhicitaanadii bangi ee ugu weynaa qarnigan 21aad iyo burcadii dhaca geysatay ee Carbonac. This is a story about the Carbonac bank hack and its masterminds. waa arooryo hore waana bishii Agosto sanadkii 2015 subaxaasna mid ka mid ah shaqaalaha bangiyada ugu weyn qaaradda Yurub waxa soo gaadhay fariin uga timi macmiil bangiga ah oo u soo diray fariin cabasho dhinaca khasnadiisa ah oo uu sheegayay inuu ku arkay khasnadiisa waxyaabo aan caadi ahayn iyo dhaqdhaqaaqyo uu ka shakiyay sidoo kale in hadhaagiisu aanu sax ahayn wuxuuna u soo diray macmiilku ninkii shaqaalaha ahaa fayl qoraal ay ku qoran yihiin cadaymaha iyo cabashooyinka uu qabo taasoo keentay inuu furo ninkii shaqaalaha ahaa isagoo aan ka fiirsan si uu u caawiyo waxaana ku lifaaqnaa faylka malware iyo virus uu hoosta ku watay kaasoo ku faafaya systemka lagu furo markii uu saa u furayna waxa uu arkay in warqadani aanay sax ahayn oo ay wax ka khaldan yihiin balse ma dareemin inuu khalad weyn galay oo keeni doona khasaare aad u weyn markii wax ka fahmi waayay warqadiina waa uu iska xidhay hawshiisii maalinleed buuna iska sii watay kolkii laga rawaxay bangigiina ee la kala tegay galabtii malwarekii iyo cudurkii waxa uu ku faafay gabi ahaanba nidaamkii iyo gabi ahaanba systemkii bangiga iyaga oo virusku raadinayay iyo waliba hackersku kombiyuutarka laga maamulo systemka iyo serverka bangiga balse may ahayn hawl fudud iyo shaqo sahlan in si fudud ay ugu dhacaan oo ay la wareegaan kombiyuutarka maamulka ah sababtoo ah inay boqolaal kombiyuutar yaaleen dhismaha bangiga iyo in systemkoogu ahaa mid ballaaran oo ay ku xidhnaayeen qalabo kala duwan sida taleefano kaamarado printero taasi oo keentay inay muddo qaadato inay helaan oo ay gudaha u galaan kombiyuutarka maamulka iyaga oo markii ay heleen weerar joogto ah ku qaaday hackerskii si ay ula wareegaan iyagoo isticmaalaya viruskii iyo malwarekii baana boqolaal application kusoo furan kombiyuutarkii maamulka ahaa taasi oo keentay inuu cuslaado oo uu adkaado isticmaalkiisu taasi oo keentay in maamulihii u yeedho shaqaalihii ciladsaarka ahaa si ay u hagaajiyaan kombiyuutarkiisa taasi oo markaa mid ka mid ah shaqaalihii ciladsaarku hawsha loo xil saaray oo uu u yimi si uu u eego waxa khaldan isagoo u sheegay maamulihii inay markaa damiso ama bakhtiisa kombiyuutarkeega kana saarto systemka kadibna ay dib u gasho oo u login garayso taasi oo ahayd mid ay hackersku rabeen si ay ula wareegaan systemka gabi ahaanba ahaydna sababta ay u soo fureen applicationada si ay u cusleeyaan oo ay ugu dambeyn u helaan baasuurka iyo macluumaadka gelitaanka systemka oo u fudaydin doona inay geystaan dhacooga waxayna sidaa ku heleen macluumaadkii gelitaanka ee kala duwanaa taasi oo ay mid ugu muhiimsan qorshahooga dhicitaan taasina waxay keentay in hackerskii ay la wareegaan gabi ahaanba nidaamkii bangiga daawadaana in muddo ah qaabka ay u shaqeeyaan shaqaalaha kala duwan ee bangigu iyo sida ay u maamulaan maaliyadda kala duwan ee taalla iyaga oo helay galdaloolooyinka uu leeyahay nidaamkoogu oo u fudaydin doona inay dhaca geystaan dadaana waxay ka shaqaynayeen oo qorshaynayeen qaabka ay u fulin lahaayeen dhacooga kaasoo ahaa qorshe cajiib ah oo aan hore loo arag oo ku bilowmayna ugu horeyn helaan qaabka ay lacagta ku heli lahaayeen oo ahayd ta ugu muhiimsan taas oo ay ku xaliyeen in dad kala duwan ay shaqaalaysiiyaan iyaga oo iska dhigaya shirkad caadi ah oo soo baahiyey boosas shaqo oo kala duwan oo mushaharkooga iyo macaashkoogu sarreeyo taasi oo dad badan ay xaraysteen boosaskaa shaqo kadib markii ay barahooga bulshada soo dhigeen iyo websaytyo ay samaysteen iyaga oo islahaa waa shirkad caadi ah oo aan ogeyn waxa ay samayn doonaan taasoo markii dambe keentay inay la yeeshaan waraysi shaqaalihii cusbaa kadibna waxa ay la wadaageen qof kasta shaqadiisii iyo qorshahoogii ay wadeen oo ku bilowmay inay ugu horreyn si ay dhaca u geystaan furtaan akoonno bangi oo shaqaynaya si ay lacagta ugu wareejin karaan marka ay dhaca wadaan sidoo kale waxa ay u xil saareen shaqaalihii in ka mid ah inay ATM-yada ama mashiinada lacagta ee kala duwan lacagta ka soo saaraan iyaga oo jabsan doona markaa si ay ugala bixi karaan lacagta si fudud goobta ay doonaan iyagoo u xil saaray shaqada qayb ka mid ah
shaqaalihii cusbaa si ay lacagta ugu soo qaadaan. Sidoo kale qorshahoodu waxa uu ahaa inay shaqaalaha cusub u sameeyaan akoonno iyana si ay ugu shubi karaan lacag. Waxa ayna kusii shubeen lacag yaroo xadidan si ay akoonka u tijaabiyaan una hubsadaan inuu shaqaynayo. Sidaana waxa ay ku dejiyeen qorshahoodii cajiibka ahaa. Waxa ayna go'aansadeen goortii ay dhac geysan lahaayeen oo ay ku dhici lahaayeen bangiyada ku kala yaala dhammaan daafaha dunida. Waa fiid bisha Julaay tahay 8 waana sanadkii 2016. Habeenkaasna laba nin oo lagu kala magacaabi jiray Falaad iyo Sarge ayaa soo abaaray mashiinka lacagta lagala baxo ee ATM-ka oo ku yaalay magaalada Taipei ee wadanka Taiwan. Waxayna rabeen inay dhacaan mashiinka ama ATM-ka oo waxa ay ahaayeen shaqaalihii la soo diray. Iyaga oo aan jabsan mashiinka ayay sugeen in muddo ah, iyaga oo aan taaban hor taagan buuna mashiinkii hal mar lacag soo qufay ama tufay. Iskii si yaro fudud bayna lacagtii u urursadeen oo u gurteen. Ilaa mashiinku waxa uu ku jiray mashiino fara badan oo yaalay dhammaan daafaha dunida oo ay hackersku jabsadeen oo maamulayeen in muddo ah. Waxayna ku programiyeen in xilli gaar ah uu soo tufo lacagtaas. Taasina waa sababta ay ugu soo direen shaqaalahaas. Kolkii ay labadii nin lacagtii urursadeenna waxa ay kacaysteen gaari u baarkin gareysnaa iyaga oo isku sii maray mashiino kala duwan oo yaalay isla magaaladaas oo isla sidaasoo kale ay sugeen ilaa ay ka soo tufeen lacag kuna dhaceen ku dhowaad 42 ATM isla qaabkii oo kale ah. Lacagtiina waxa ay ku qariyeen qasnado ku yaalay saldhigga tareenka iyaga oo ku qariyay halkaas. Muddo kadibna waxa lacagtii qaadeen laba nin oo kale oo rabay inay dadka ka saaraan. Dhacna kaliya kuma eekayn Taiwan sidoo kale waxa uu ka dhacayay wadamo kala duwan sida Ukraine, Belarus, Tajikistan, Russia iyo wadamo kale oo ku yaala waqooyiga Yurub. Waxaana la sheegay inay burcadaasi sidaa ku dhaceen lacag dhan 400 milyan. Intaana kumay joojina weli waxa ay rabeen inay sii dhacaan wadamo kala duwan iyaga oo markaa uu galay damac lacageed oo ahaa inay si fudud u dhacaan lacagta cilada iska taal. In muddo ah baanay sidaa ku wadeen dhacoogii iyada oo aan la dareemin inay gudaha ugu jiraan systemka iyo nidaamka bangiyo kala duwan. Ilaa maalinkii dambe mid ka mid ah shaqaalaha bangi oo ahaa cilad saare uu ku baraarugay goor uu ku jiray gaadh in qaar ka mid ah kombiyuutarada bangigu kaasoo ahaa ka maamulku uu dirayay fariimo xidhan dhanka iyo China, taasoo ahayd arrin fajac ku noqotay markii uu xaqiiqsadayna qayladhaan u diray maamulkii iyo ilaaladii bangiga ee amniga si ay u hubiyaan bal arrinta fajaca ah ee uu arkay. Kolkii ay wada eegayna waxa ay aamini waayeen waxa ay indhahooda ku arkeen iyaga oo xaqiiqsaday markaa inay dhacan yihiin systemkoogana lagu dhex jiro kombiyuutaradoodana la isticmaalayo oo ay iskood ismaamulayaan. Si ay taa u hubsadaanna waxa ay soo fureen waraaq Word ah waxa ayna ku qoreen qoraal ahaa hello oo loogu jawaabay cajiibe hay dhammaana qaban doontaan oo afruusha. Taasi oo fajac iyo argagax ku noqotay una xaqiijisay shakigii ay qabeen oo run noqday. Waxayna markiiba isugu waceen kulan degdeg ah dhammaan maamulkii iyo shaqaalihii bangiga iyagoo la wadaagay warkii naxdinta lahaa markiiba. Kolkii ay ogaadeen warkaasna waxa ay la sii wadaageen bangiyadii kale ee ku wada jireen nidaamka oo ku yeelay dhammaan daafaha dunida. Waxayna u sheegeen inay balyana hubiyaan nidaamadooda in lagu dhex jiro iyo in kale. Warkii dhacuna wuu faafay. Burcadiina waxa loo aqoonsaday inay maamulayaan bangiyo kala duwan waxaana loo bixiyay magaca Carbonac oo laga keenay malware-kii iyo fayraska ay isticmaalayeen. Waxayna u dhaqaaqeen bangiyadii iyo xukuumadihii kala duwanaa ee dhaca laga geystay inay la dagaalamaan oo ka saaraan nidaamadooda burcada halista ah. Sidoo kalena waxa ay sameeyeen dabagallo iyo baadhitaano lagu soo qabanayo burcadaas iyo weliba cidda ka dambaysa dhaca. Wadamada kala duwan ee dhaca laga geystay waxa ay ku daba jireen burcadii waxayna rabeen inay soo qabtaan oo xidhaan joojiyaana dhaca ay wadaan iyaga oo sugayay intay khalad geysanayaan. Waxayna ugu dambeyn ciidankii heleen malware-kii ay isticmaalayeen oo in muddo ah ku qaatay inay fahmaan qaabka uu u shaqeeyo. Sidoo kale waxa ay rabeen inay helaan khaladaad iyo cadaymo ay ku soo qaban karaan bal cidda ka dambaysa dhacan. Ilaa ay habeenkii dambe dhaceen laba nin ATM ku yaala wadanka Taiwan taasi oo ay ugu dambeyn khalad galeen ayna heleen ciidanka wadankaasi wicitaanka nin Taiwanese ah oo ka shakiyay raggaas markii uu arkay qaabka ay u sugayeen lacagta iyaga oo ka cararay markaas lacagtiina aan urursanin. Kolkii ay ciidanku yimaadeen ATM-kii waxa ay heleen ID card-ka mid ka mid ah tuugadii ka carartay lacagta kaas
kaasi oo magaciisu ahaa Serge. ID card-kuna wuxuu fududeeyay inay soo qabtaan ninkaas kadib markii ay baadheen CCTV kaamaradaha kala duwan ee magaaladaas, kaasi oo markii ay soo xidheen la yeesheen waraysi degdeg ah bal cidda ka dambaysa dhaca, taasi oo ay markii dambe xaqiiqsadeen inay dhaceen ATM-yo kala duwan iyo weliba qaabka ay dhaca u geysteen. sidoo kale ciidankii Taiwan waxa ay soo xidheen raggii lacagta qaaday oo ay ku qabteen hotel ay safar ku ahaayeen. kolkii ay saldhigga keeneenna waxa iyana la yeesheen waraysi, kuwaasoo u sheegay ninkii madaxda u ahaa iyana oo isna ugu dambeyn la soo qabtay isaga oo baxsad ku jiray markaa. waxa ayna dabagal ku sameeyeen dhaqaaqiisa oo ugu dambeyn heleen meeshuu lacagta ku qariyay. waxa ayna 4 nin ka qaadeen ku dhawaad lacag 1.5 milyan. kolkii ay baadhitaan ku sameeyeen dheeraadahna waxa ay ka heleen cadaymo dheeraada sida taleefankiisa oo laga helay nambarka ninka maamulaha u ah oo magaciisu ahaa Danny, kaasi oo ahaa madaxa iyo mucjisada ka dambaysa dhaca, iyaga oo xaqiiqsaday markii dambe iclaamiyeen inuu yahay ninka ka dambeeya dhaca. warkii tuugtina waxa uu noqday mid caan ah oo ay qaadaan dhigaan dhammaan saxaafadda kala duwan. waxa ayna raadinayeen wadamada kala duwan iyo hay-adaha dambi baadhineed rabeenna inay soo qabtaan ninka ka dambeeya dhaca oo ay xaqiiqsadeen inuu yahay Danny. Cyber attackers getting their hands on about $1 billion. in muddo ah bay dambi baadhayaashii dabagal ku hayeen Danny, waxa ayna heleen warka sheegaya inuu ku nool yahay Spain kadib markii halkaa dhac laga geystay oo kii laga geystay Taiwan, taasi oo markii dambe ay ciidankii xaqiiqsadeen meesha uu ku nool yahay iyo inuu ka dambeeyay dhacaas kale, taasi oo uu ku noolaa jasiirad yar oo ku taalay halkaas oo uu ku raaxaysanayay lacagtii faraha badneed ee uu dhacay oo uu ka iibsaday gawaadhi iyo guryo qaali ah oo siyaadisay shakigii laga qabay ee ahaa inuu ka dambeeyay dhaca. in muddo ahna markii lagu hayay dabagal, ugu dambeyn waxa ay ciidankii ku qaadeen weerar gurigiisii, waxayna gacanta ku dhigeen dambiile Danny isaga iyo hantidiisii gawaadhida iyo guryaha ahayd, iyo sidoo kale 15,000 oo bitcoin oo u dhiganta $165 milyan oo ku jiray akoonkiisa kadib markii la helay laabtoobkiisa oo furan lana baadhay. waxaana sidaa lagu xidhay oo xabsiga lagu dhigay dambiilihii iyo madaxii ka dambeeyay dhacii Carbanak, waxaana lagu xukumay xabsi dheer. cudurkii iyo maalweerkii Carbanakna wali waa mid burcadda kala duwan ay adeegsadaan koodhkiisii kuna dhacaan bangiyo kala duwan, waxaana la sheegay inay kooxo kala duwan isticmaalaan walow la xidhay ciddii ka dambeysay dhaca. sidoo kalena bangiyadu ay og yihiin inaan lagu dagin qaabkaas. khaladka uu galay ninkii shaqaalaha ahaa waxa uu keenay inay hakarisku dhacaan iyo burcaddu lacag lagu qiyaaso 1 bilyan, waxayna ka dhaceen 100 bangi iyo sida la sheegay 25 wadan oo ku yaala dhammaan daafaha dunida. ceeb darteed baana ilaa maanta la sheegin magacyada bangiyadii la dhacay sababtoo ah intay leeyihiin khasaaraha iyo intay hakarisku ku dhex jireen systemkooga. waxaana la sheegay burcaddu inay kasoo jeedaan wadamo fara badan sida Ruushka, Ukraine, China iyo wadamo kale oo ku yaala daafaha dunida. haddaad ka heshay taxanahana fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kana mid noqo xirta xogdoon oo la soco xalqad cusub maalin kasta oo Jimcaad. waxayna ku soo afmeeri doonaa xalqadeenan weer laga hayo mid ka mid ah shaqaalihii qaybta ka ahaa cilad saarka nidaamyada bangi oo ahayd waxaanu aragnay in isla qaabkii u geysteen burcaddu dhicitaano iyagoo isticmaalaya isla hal koodh, balse waxay ahaayeen kooxo kala duwan. waxaase isku ekaa qaab dhicitaankooga, wayna ku adag tahay ilaaliyayaasha iyo amni sugayaasha nidaamada inay ogaadaan kala duwanaanshaha kooxaha sababtoo ah waxay isticmaaleen isla hal koodh. sidaad ogtihiinna way adag tahay in la soo xidho koodh. You can find the same piece of code being used by different groups. And it's very hard as a security researcher to know the difference which group is using what code because the code is very similar. It's very hard to arrest a piece of code.